waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal tabinta ciyaarta weyn ee xiisaha leh taasoo u dhaxaysa kooxaha Heegan iyo sidoo kale Horseed waa ciyaar qurux badan waa ciyaar xiisad badan waa ciyaar xamaasad badan waa mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaarayo isbuucan ciyaaraha koobka General Daawud kubadda ayaa markan la baasay waxaana la daafuray koobka General Daawud sanadda 2020 waxaase kaliya dhiman in garsoorku seeriga uu ka dhawaajiyo oo Soomaaliyeed midabkeeda ay cadaanaya ku ciyaarayaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Heegan halka ay wajahayaan kooxda ku ciyaaraysa Soomaaliyeed midabkeedu ay orange iyo sidoo kale madow waana kooxda Caawiye maalin Horseed si kastaba laacibka lagu magacaabo Joshua ayaa sameyn doona bilowga baaska ugu horeeya qaybta koobaad ee ciyaarta si kastaba Xasan Cabdinuur Geese Xasaasi boqorka sidbiiska kooxda Horseed ayaa kubadda u taagan Xasaasi waa soo crossay oo ya salaam super وحيات كبد عليسا وحيات كبد غترة وحيات كبد على أمريكان وحيات كبد على بوركيد ولا حساسة وحيات كبد لكان الديل انت لهذا كهذا هيجن وحسيات كبد بناكو يسقى صاري قول هيا لو ما جابا يلا ويا مركن وحال السمانة يا كبد فاولا وحنا صوتورنا يا عيارتو إذا كهذا كبد عكتة ورسات حسن عبد النور جيسي حساسة يا كبد وتاجن عياريان كي وراك واحد جاي وسكرسي أوه غلطة Horseed ayaa hoggaanka qabatay Horseed ayaa ku bilowday kooxda kubadda cagta Heegan ciyaaryahanka lagu magacaabo Joshua Abdul ayaa kubad qurux badan ugu shubay waxayd kubad qurux badan waxayd kubad laga soo shaqeeyay waxayd kubad la soo taabtay waxayd kubad ugu dambeyn la dhameystiray Horseed goal galabta waa galabtii kooxda Horseed galabta waa galabtii kooxda Abdijan galabta waa galabtii la burburinay kooxda Maadmeekon galabta waa galab kale oo gaara kooxda Caawiye maalin balaan daawada qaabka loo dhisay balaan daawada qaabka loo abuuray balaan daawada qaabka loo xasiliyay waxay daabkeedu ayeen cajiib xasaas ayaa soo crossay difaaca Heegan ayaa madaxayay waxa ciqaab shabaqa kooxda Heegan ciyaaryahanka lagu magacaabo Joshua Abdul kubad geeskalaada ayaa la soo tuuranaya ama koorna waxa soo taagan ciyaaryahankii hore kooxda Raazan saxiix dhawaan galka kooxda Maadmeekon adbitax kante kubadda uu soo cross wala soo burburiyay Ibrahim Rasta Mohamed Kalim wala baasay Ismaaciil Wadow fursad furnayo rumiyay fursad alla min kiranayo qasaariyay fursad gool loo filan karayo lumiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Ismaaciil Wadow waxayd kubad degdeg uu ku dhisay waxayd kubad degdeg uu ku darbeeyay waxayd kubad degdeg banaanka ku aaday taasoo kooxda Heegan ay abuurtay waa gool eber daliyaha goolku qoray galabtar waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Joshua Abdul Abuna qatar banaanka ayuu soo dhigay Abuna Ahmed Fawzi Ahmed Ahya Ahmed Galatso gool Heegan gool kooxda Maadmeekon goolkiisa ugu horeeyay uu dhaliyay kooxdiisa ciyaaryahanka lagu magacaabo Ahmed Fawzi Ahmed galabta waa galab qurux badan galabta waa galab cajiib ah galabta waa galab aan la aamini karin ciyaarta waa galab aan la saadaali karin xitaa dabaaldegay ayuu ku dhaawacmay tababaraha hogaamiye kooxda kubadda cagta Heegan Mahad Maxamed Xaaji Maadmeekon balaan daawada qaabkii uu dhameystiray waxa uu ka helay kubadda boosalisa waxa uu sameeyay toogasho cajiib ah wax kasta ay kubadda taraaraxdo wax kasta ay kubadda tarantaroto wax kasta ay kubadda talantaali sameeyso waxa uu Ahmed Fawzi taabsiyay shabaqa kubad kontrataag ayaa wuleysa markan hanad super pass waxa uu loogeeyay kubadda xasaase atam waxayd kubadda ilmaaragta taasoo lugta midig uu ku darbeeyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Geese Xasaasi wax kasta ay xawaareyso wax kasta ay xawaareyso waxyaada banaanka injiis ayaa u jirta shabaq wiilaalay gool ayaa lagu magacaabayaan leh hadda waa injiis kubadii madfaceed uu darbeeyay Xasaasi 30 sano kadib saacadaha garoonka tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho ayaa lagu dhijiyay garoonka waliba si qurux badan xitaa waqtiga goolasha la dhilay ayay soo sheegayaan sigastaba garsoore Xasan Baari waxa uu ka dhawaajiyay seeriga waxa qaybta koobaad ee ciyaarta lagu kala maraya daawadayaal Horseed gool Heegan gool inkastoo laacibka lagu magacaabo Ismaaciil Wadow ciyaartu uu ciyaarayo haddana ma jiro wax isbedel ah maadaama tababaruhu bedelku uu maskaxdiisa kaliya ay ku fikirta haddana uusan sameeynin sigastaba
kooxda heegan ayaa sameysay baaska qaybta labaad ee ciyaarta waxaana si dardar ay ku bilowdeen taas oo ka saameyn badan qaybtii koobaad ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee heegan abuna baas ayuu sameeyey Omar Sharif ayaa kubadda asal ciyaaray golaaya Suleymaan Maadi Ali Salinka ayaa kubadda haysta markan Salinka waxa uu kubadda asal ciyaaray Omar Sharif si qurux badan ayuu u gooyay Omar Sharif kaas oo hal abuur qurux badan iyo farsamo cajiib ah ku sameeyay ciyaaryahanka weerarka dhex ugu ciyaaray kooxda heegan Mohamed Kelin Med kubad kale oo qatar ah nanka ayaa laga darbeeyaa saate waxay ka hadda banaanka kaliya waxay soconaysaa 5 daqiiqo balaan daawano balaan qiimeeno balaan milicsano mar kale hal abuurkii uu sameeyay Omar Sharif kaasi oo dhulka u diray Mohamed Kelin mid kamid ah weeraryahanadii kooxda kubadda cagta ee heegan سوكل أحمد فوزي وأنا جول كورة كحضن نون هاشمي سعجيب أيوب باس عبد الله على بله وعيريان آد وحوار بدن وكتاب صدق بدأ عبد الله كروس بس جاري على صديقي قلت جوشوا عبدو قلبت جوشوا كحض أرساد قلب غرح بدن عبد جون قلب إقابة كحض إذا كبوليس كساماليين هيجن قلب بندق والي أي سمانيان way dabaldegayaan way degeynayaan way raaxaysanayaan oo rucleynayaan way fahmayaan oo qaadanayaan waase ay qoslayaan oo dhoola cadeynayaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Horseed wax kasta way isbedeleen natiijadu way isbedeshay Horseed waxay ku soo laabatay hoggaanka super pass Abdallah Ali Bile super goal Joshua Abdul waxay ahayd kubad dhan kasta laga xirfadeeyay waxay ahayd kubad miisaaman waxay ahayd kubad kala dhantaashi difaaca waxay ahayd kubad uusan wax ka qaban karin gool hayaan leh dulcuda iyo sidoo kale degdega waxay ahaayeen kubad dilahankii kooxda kubadda cagta ee heegan dabaaldegana uu bilowdo in ciyaartooyda kooxda heegan ay ku qoomameeyaan gudaha garoonkan daqiiqado yar ayaa ka xigta haddii aysan isbedel buuxa aysan keenin